waxaan shalay u daahfurnay golaha dhaqaalaha qaranka ay ku jiraan dad Soomaaliyeed iyo dad aan Soomaali ahayn oo mid walba uu PhD haysto sababtoo ah waxaan soo gaarnay iftiinkan idin sheegayay laakiin waxay u baahatay aqoon ka badan mid anagu aan leenahay sababtoo ah waxaan aqbalnay inaan si sax u qaadano daawada naloo qoray sababtoo ah waxaan aqbalnay inaanan qarin cudurka aan qabno waxaan aqbalnay inaanan yeelayn dalkan in musuqmaasuq lagu dhaqmo waxaan rabaa caawa marka inaan halkan uga diro fariin qof walba oo Soomaaliyeed ama wasiir ahaw ama cid kale ah oo xil u haya dawladda Soomaaliyeed oo ku fikiraya inaad ku takrifasho xoolaha ummadda oo ka shaqeynaya inaad musuqmaasuqdo waxaan kuu sheegayaa inaadan alfanayn ha isku xadin ha isku dhicin waa lagaa daba imaanaya waana lagu soo xiraya waa la dhaafay waqtigii musuqmaasuqa iyo tuugada waa la dhaafay waqtigii lagu takrifali jiray xoolaha ummadda Soomaaliyeed sanad ka hor waxaan idin ballan qaaday in la shaqaalaysiiyo 1,000 dhalinyaro ah waxaan rajaynayaa in qaar idin ka mid ay ka faa'iideysteen sanadkaana waxaan leeyahay gudoomiye Yariisow ka qaba araajida 1,000 kale oo Soomaaliyeed oo la shaqaalaysiiyo kuna xisaabtan waxaan leenahay injineer Yariisow oo ah duqa magaalada Muqdisho gudoomiyaha gobolka Banaadir waa inaad si cadaalad ah uga qabataa 1,000 qofood oo Soomaaliyeed ee degan magaalada Muqdisho rag iyo dumar idinkana waxaan idin leeyahay kula xisaabtama kana faa'iideysta sidoo kale waxaan leenahay dhalinyarada Soomaaliyeed oo degan dawlad goboleedyada hoos yimaada dawladda federaalka sidaas oo kale ayaa idinkana la idinku keenayaa shaqaalaha la idin shaqaalaysiinayo dhaqaalaha lagu bixiyo magaalada ayaa idinkana la idinku bixinayo sanad kadib waxaan aaminsanahay in dareen qarannimo uu dhashay sanad kadib waxaan aaminsanahay in hamigii iyo qabkii ummadda Soomaaliyeed uu dib u curtay sanad iyo xoogaa kadib waxaan aaminsanahay in ummadda Soomaaliyeed aanay mar dambe aqbali doonin in la liido caawa waxaan ku faraxsanahay laakiin in shaqadii qarankaan u haynay ay mira dhashay sababtoo ah halkan waxaa soo istaagay gabar leeyahay Muuno iyo wiil leeyahay Lafoole fariinta halkan ay ka gudbiyeen ayaa xambaarsan qarannimada iyo dawladnimada waxaan isweydiinaynaa marka meesha hadda aan soo gaarnay oo aasaaska xageen rabnaa inaan ka aadno dal noocee ah ayaan rabnaa inaan dhisno dawlad noocee ah ayaan rabnaa inaan yeelano sharaf iyo karaamo noocee ah ayaan rabnaa inaan yeelano waxaan ku jirnaa qarnigii 21aad ma yeelan karno dhaqan ku salaysan qarnigii 20aad waxaa la rabaa marka dhalinyaro in ra'iisul wasaarihiinu halkan soo istaago uu yiraahdo dhalinyaraan shaqaalaysiinayna ma aha hamiga aan leenahay hamiga aan leenahay waxa uu yahay dalkan isaga leh khayraad ku filan khayraadka si aan uga faa'iideysano annaga hor taagnayn ku dhawaad 30 sano su'aasha aan idin qabo waxay tahay diyaar ma u tihiin inaan ka wareejino isbaarada mise diyaar uma ahdina
diyaar ma u tihiin dowladnimada inaan ka hor wareejino isbaarada waxaan idiin sheegayaa si aan dunida ula tartanno waa inaan leenahay iskuullo iyo jaamacado ku astaysan qarniga 21aad waa inaan leenahay macallimiin iyo maamulayaal aqoontooda ay u dhiganto ama ka sarrayso dalalka dunida intooda kale waa inaan leenahay isbitaallo iyo iskuullo iyo jidad iyo buundooyin dunida u soo jeediya dalka Soomaaliya waa inaan leenahay shuruuc kala hagta dalka iyo kuwa raba dalkeena inay yimaadaan oo ay maalgashadaan waa inaan leenahay mas'uuliyiin iyo siyaasiyiin shaqadooda ay tahay inay shacabka u adeegaan oo aanay ahayn inay iyagu shacabka ka adeegtaan kuma socon karno dariiqo hore oo ma sugi karno inaan soo saarno wixii hore wax ka duwan kuma shaqayn karno qabyaalad oo ma dhisi karno dalka aan sheegayno ma aqbali karno musuqmaasuqa oo ma dhisi karno dalka aan sheegayno ma yeeli karno in qofkii musuqmaasuq loo soo xiro walaalkiis ama adeerkiis oo xildhibaan iyo wasiir ay ka daba yimaadaan ay yiraahdaan hala soo daayo wiilka ayada lafteeda musuqmaasuq kala ma yeeli karno xamar ku dhawaad 3 milyan oo qof inay ku nooshahay dhowr wiil oo shabaabana inay shacabkeena nolosha u diidaan haddii degmo walba ay sabaabisho dhalinyarada ay hurdada ka kacdo aad iska daysaan caawa maxaad ku casheynaysaan inaad ka fikirtaan oo u fikirtaan qarniga 22 Soomaaliya xagee bay joogaysaa oo u fikirtaan geedka maanta anigu aan beero 100 sano kadib ayaa la harsan doonaa ma arki doonaa anigu waxa arki doonaa caruurteyda iyo kuwa ay sii dhaleen sida kuwii xorriyadda soo dhaliyay aan caawa geedii ay beereen u harsanayn dowladnimadu waa qof walba oo aqbashay iyadu inay marka hore isla xisaabtanto waxa la isku haysto ma ahan bil Soomaaliya maxaa laga yiri waxa la isku haysto ma aha xildhibaankeedu codeynaysa waxa la isku haysto waa mustaqbalkaada waa sidaad u noolaa lahayd waa dhaxalka caruurtaada aad uga tagi lahayd waa sharaftaadu sida ay ahaan lahayd waa raasumaalkaadu waxa uu noqon lahaa